hore Ethiopia de wax weeyaan wadanka ugu hadilmay dad fara badan wadanka hadilmay dhinaca iqtisaadka ugu culus hadilmay geeska Afrika leh siyaalo fara badan hadilmay baxaa wadanada geeska Afrika dad iyagu ku nool malaha qoomiyad aan ku nooleen halkaas ma jirto khaasatan shanta qaybood ee hadilmay Soomaalida ku loo fiirsado Soomaalida cid kasta waa degan tahay walibana hadilmay isbedelkaas isbedelkii ka dhacay hadilmay kilinkii shanaad ambaba hadilmay baxaa dawladda hadilmay Soomaaliyeed Somali State sida imika hadilmay baxaa ay magaca rasmiga ah hadilmay baxaa ku shaqayn doonto kulkaas arrimahaas hadilmay baxaa waxa loo baahan yahay xagga dhaqaalaha xagga siyaasadda iyo hadilmay isbedelka guud ee bulshada hadilmay dadyogo ku nool mandaqadanba si weyn bay u saameyn doontaa waana arrin hadilmay baxaasan horaba ee taariikhina ah ay tahana hadilmay baxaa saameyn doonta cid walba geeska Afrika ku nool horta arrinta hadilmay kulka yaanaynu ka sii balaarin intay tahay halka ay ka soo askumayso waa inaynu hadilmay baxaa ogaana waxaana ila tahay hadilmay xal u helista arrintaasi waa arrin hadilmay baxaa qaab dhismeedka dawladeed ee hadilmay baxaa maanta taagan Somaliland iyo adeega hadilmay looga baahan yahay qaab dhismeedka hadilmay baxaa wadanku leeyahay hadilmay si dadku ay raali ka wada yihiin ay noqdaan iyadoo hadilmay saraakiishaasi ay hadilmay tirsanayaan in hadilmay baxaa la gacan bidixeeyay iyaga iyo beelahay ka soo jeedaanba iyo horta arrintu ay tahay arrinta loo baahan yahay kolkaas siyaasi ahaana in hadilmay loo galo hadilmay maxaa kulkay noqoto beelaha hadilmay Somaliland hadilmay degana hadilmay maxaa dhaqankooda hadilmay wax weyn bay ka qaban karaan sidii arrintan ceelaf weyn ba loo hadilmay maxaa loo galay waxay u baahan tahay dhinacaas in laga eego dhinaca hadilmay dhismaha ciidanka Somaliland waxa loo baahan yahay isagana si hadilmay ciidankaasi uu u shaqeeyo aan tafararuq keenin hadilmay maxaa in isagana loo hadilmay habeeyo isugeyn meesha waxa hadilmay maxaa ciidamadaas hadilmay saraakiisha ciidamadaas hadilmay ka goostay ciidankii waxay tirsanayaan wax gaara oo ay leeyihiin waxa hadilmay maxaa xuquuqdii aanu lahayn iyo tira iyo tayadii ay ahayd ma inaan hadilmay ciidanka ku joogno ayaan meesha oolen sidaas hadilmay u goostay kulkaas siyaasiyiinta Somaliland beel kasto ay ka soo jeedaan hadilmay maxaa waxa loo baahayay sidii wadanku uu ku dagi lahaa burbur iyo hadilmay maxaa dhibaatooyin hadilmay ay u iman in hadilmay cid walba mas'uuliyadda saaran inay wax ka qabato inay arrinta wax ka qabato sidaas aawadeed siyaasi ahaan anigu waxa ila tahay dawladda maanta jirta iyo dawladihii hore ee dhibaatada taagan ay ka soo askumayaan iyo hadilmay maxaa dawladda Somaliland siday u maamulayso militariga arrimahaas in hadilmay maxaa laga wada fadhiisto oo hadilmay siyaasiyiinta kala duwan ee beelaha Somaliland ka soo jeeda ay hadilmay maxaa arrinta wax ka qabtaan taasna sidaas hadilmay ogsoon tahay shirkii hadilmay maxaa gacan libaax lagu qabtay beel weynta hadilmay maxaa garxajis ay hadilmay maxaa soo jeedisay hadilmay arrimahaas oo kale sidii loo dhameyn lahaa waxa la gaaray waqtigii aad iyo aad runtii arrintii loo dawladdu ay u qaadan lahayd wax muhiim ah hadilmay beesha ay saraakiishan ka soo jeeday garxajisna siyaasiyiinteeda iyo madax dhaqameedkeedu qudhidoodu ay hadilmay maxaa wax ka qabtaan laakiin cidda lala hadlaya waa dawladda hadilmay Puntland wixii Somaliland ay ka asaasantayba ambaba Somaliland iyo Soomaaliya isu imadkoodii iyo labadii hadilmay wadan ee hadilmay 60kii isu tagay ee wax ka qabashada arrintaas hadilmay maanta ay hadilmay asal ay saldhig u tahay dhibaatada maanta ka taagan Soomaalida dhexdeeda iyo geeska Afrikaba horta Puntland dhismihiisu waa mid aan gabigiisu aqoonsanayn in dhulkani uu yahay dhul Somaliland Somaliland na halkay ay arrintan ka saar lahayd culayska Soomaaliya iyo Somaliland arrintan hadilmay ka dhaxaysa ee keentay
in Somaliland iyo Soomaaliya ay ku noqdaan labaduba sidii hadilmay kolkay isu yimaadeen 60 ay ahaayeen dawladda Somaliland runtii way ka hadilmay muxuu ahaa gaabisay inay arintaas Soomaaliyana hor dhigto caalamkana hor dhigto arintu ay noqoto arin hadilmay muxuu ahaa وقالت كويس على وضع هدلمي محاها إن الرمود حاجة مثل أنا دبعت كإيمان يسوع لين عن هدلمي يقول سومالي أنا دبعت كإيمان يسوع تاسا هدلمي محرته واحد دبعتنا وضعيتها هاي صول يسناك خاصة صول عدول أو هدلمي تاريخ جيس كأفريقيا كور هيسا عيد كستو أو هدلمي محاها ما أنت حل رادين تا جيس كأفريقيا كو هولاني ويأكسون تهاي إن هدلمي صول أي هدلمي كميت هاي سومالي